oo maalmo ka hor laga xiray magaalada Burco ayaa maanta waxaa la horgeeyay maxkamad ku taala magaalada Hargeysa inkastoo warar aan helin ay sheegayaan in maxkamaddu ay diiday dhageysiga dacwadda wariyahan loo haystay. Wariyahan Elias Cabdi Cali ayaa warkan Hargeysa nooga soo diray. maxkamadda gobolka Muqdisho ee magaalada Hargeysa ayaa maanta diiday in ay furmaan u jarto wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ciidamada booliiska Soomaaliland ay 17 bishan ka soo xidheen magaalada Burco ee gobolka Togdheer. maxkamaddu waxa ay sheegtay in aanay awoodin in ay ka taliso qof laga soo xidhay gobol kale isla markaana ciidamada booliiska Soomaaliland ay sifa sharciga baalmarsan ku soo xidheen wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon. garyaqaan Mubarak Cabdi oo ah qareenka u doodaya wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo saaka ka qayb galay dacwadaasi ay maxkamadda ka furanayeen ciidamada booliisku isla markaana ay ku eedeynayeen wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon waxa uu sheegay in gudoomiyaha maxkamadda Axmed Dalmar uu go'aan wanaagsan ka qaatay xukunka ama eedaha ay ku soo oogayeen ciidamada booliiska Soomaaliland. laakiin mas'uuliyiinta gudoomiyaha maxkamadda gobolka ku canseeray dalabka ka yimid ciidanka booliiska gudoomiyaha Mubarak saddex qodob qodobka koowaad xariga wariyaha oo aan amrin fashil ay markaan ugu soo qaban amar qabasho oo ka soo baxay maxkamadda awood u leh iyo talabaad gudoomiyaha ku xidhay oo ah inaan soo awood lahayn dhageysiga dacwadda iyo garnaqadeeda marka loo eego iskaaska leed ama wax loo yaqaano territorial suspicion maadaama gudoomiyaha maxkamadda gudoomiyaha ka yahay baaxadeedu ku egtahay gobolka Muqdisho qura. arrinta saxaabada gudoomiyaha ku soo waxa weeye in aanay maxkamadda sare soo saarin qaraar ama amar ay ku soo jeedinayso in lagu dhageysto kiiska Coldoon Hargeysa isla markaana ma jirto baahi keenaysa in Coldoon Burco laga soo xiro iyadoo lagu qalalku geystay in la xiriirinayo in Burco ka dhaceen in Hargeysa la keeno. isla markaana maxkamadda sarnaan in qaraar ka soo saarin saddex sababod ayuu kala codsaday gudoomiyaha dacwadda dhageysta magacaada lagu dhageysto waxna waxay dadka gudoomiyaha lagu daweeyo xisaab lagu geeyo isla markaana lagu celiyo doontiisa eedaha lagu ogayo Cabdimaalik Muuse Coldoon ilaa iyo hadda maxaad ka ogtahay eedaha lagu ogayo in Cabdimaalik Muuse Coldoon ilaa hadda xog rasmi kama hayna laakiin ardaca waxa loo ognahay inay maarka la xiriira aragtiyihiisa oo sida gaarka ugu caddaatay fariisa bulshada ee Facebook iyo wararka uu umada soo gudbiyo waayo Coldoon ma aha nin shaqo kale ku hawlana waa nin suxufiya wax uu xiran yahay hadda ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa dib ugu celiyay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon kadib markii maxkamadda gobolka Muqdisho ay diiday in dacwadiisa laga furo magaalada Hargeysa. gudoomiyaha maxkamaddu waxa uu 7 cisho u qabtay ciidamada booliiska inay ku celiyaan Cabdimaalik Muuse Coldoon gobolka Togdheer isla markaana dacwadda ay kaga soo ogaan maxkamadaha ku yaala gobolkaasi. wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon ayaa sidan oo kale sanadkii hore ciidamada booliiska Soomaaliland ay ku xidheen magaalada Hargeysa kaasi oo 3 sano oo xariga ay ku xukuntay maxkamadda gobolka Muqdisho ee maanta diiday dacwadiisa kadib markii lagu eedeeyay falal ka soo horjeeda qarannimada Soomaaliland iyo taageero uu muujiyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xukunkaasi waxa cafis u fidiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo.